magaalada xamar kaliya rabnaa 100 milyan in la geliyo sanadkan iyo sanadka soo socda si hoosliyada ay safaaradaha dibadda ku yaala qabtaan dan tusaale idin siiyo wali khasnada kuma soo dhacaan arrimaha badan baynu dunida runtii tusaale ugu nahay oo laynagaga dayanaya in la rabo hindisaha ay ku jirto lacagtii hadda loo raadinayo in deked weyn magaalada laga dhiso oo gobolka oo dhan u adeegta in airport caalami ah magaalada laga dhiso in jidad la dhiso mashaariicda hadda aan wadno World Bank waxaan daraasad ku wadnaa waxaan loo yaqaan corridorska ama wadooyinka xuduudaha ka talaaba ee Soomaaliya guud ahaan ee gobolka inagu xidhaya dhamaantood in la darso waxay u baahan yihiin kuwa ugu muhiimsan ay tahay in la dhiso waxa kale oo muhiim ah in la diyaariyo iyaguna farsamooyinkii xagga la xiriira tiknoolajiyadii oo mashaariic waxa jira loogu talagalay xagga kaabayaasha tiknoolajiyada iyo isku xidhka dhanka fiber optic in wax laga qabto tamarta oo lacag badan la gelinayo 250 milyan baa hadda dawladdu u qoondaysay korontada in la geliyo Soomaaliya magaalada xamar kaliya rabnaa 100 milyan in la geliyo sanadkan iyo sanadka soo socda si hoos loogu dhigo 50% tamarta qofka qiimaha tamarta magaalada xamar iyo guud ahaan dalka qaybihiisa kale marka talaabooyin waaweyn oo dawladdu wado oo loogu talagalay shaqada in lagu abuuro ayaa jira laakiin guud ahaan qasnadeena midaysan dakhliga ay qabato cashuuraha hadaad eegto ilaha cashuuraha bixisaan oo dhan dhamaanteed waxa ku bixisaan qasnada midaysan haday tahay cashuurta wadamarista haday tahay cashuurta gadista haday tahay cashuuraha furdooyinka haday tahay cashuuraha loo yaqaano macaashka kuwa loo yaqaano cashuuraha qofka de laga gooyo mushaaraadkiisa iyo waxa soo dhan dhamaantood waxay ku soo dhacaan qasnadeena midaysan waliba hadda waxaan u sameynay hanaan casri ah oo lagaga maarmayo dadkii intay lacagta ururiyaan lacagta qaadaan qasnada geyn jiray oo qofku markuu uu cashuurta bixiyo si toos ah isagoon cash bixinin ama cash arag qofka cashuur ururiyaha ay qasnada ugu dhacayso dad mobilkaaga hadda dukaan intaad gasho wax ku gadato cashuurtu si toos ah automatic kaaga go'aysa qasnada ay aadaysa gawaarida waad aragteen sida loo casriyeeyay sidii dunida inay u eg tahay gaarigaaga plate numberkiisa inta la numberada la geliyo laga arki karana cashuurtii bixisay inaanad bixin hadaanad bixinna wadada dhinaceeda aad ku bixin karto adoon qofna lacag u dhiibin traffic la luushinin intaad iska bixi xafiis tagin halka intaad 4 number garaacdo ku bixiso ay khasnadii aadayso marka runtii khasnada midaysani koboc weyn bay samaysay waxyaalaha ugu waaweyn ee lanagu amaanay dunidu nagu amaantay ama laynagu majartaani kow ka tahay dakhliga ka baxsanka gudaha ee banaanka nooga yimaadana dhaqaalaha ugu badan ee soo gala waxay naga soo galaan bangiga adduunka iyo bangiga horumarinta Afrika iyo qolayaha waxbarashada kaaba ee GPE loo yaqaano iyaguna qasnada midaysan bay isticmaalaan waxa jirtay mar bangiga adduunku markii uu dalka yimi usbuuc kasta laynaga 50 milyan ugu horeeyay bangiga adduunku ina siiyay usbuuc kasta waa la xisaab celin jiray yani heerka ay maraysay kalsoonida dawladda khasnadeeda lagu qabaa usbuuc kasta waraaqa la rari jiro Nairobi la geyn jiray maantana 3 bilyan oo dollar oo bangiga adduunku bixiyo oo portfolio hadda 2.9 bilyan weeye dhamaanteed khasnada dawladda lagu maamulaa dhamaanteedna marka la audit gareeyo auditorkeena iyo auditorada caalamiga bangiga adduunka soo dirtaa ka wada shaqeeyaan clean audit bay wada helaan aan cilad lahayn mashaariicdaas